لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله walaalyaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh. ilaahay inoo fududeeyey kulankan qiimaha badan aan isugu nimid inaan isu sheegno khayr iyo wanaag. ilaahay ha naga dhigo kuwa khayrka ku kulmo wanaag, ilaahayna meeshuu jeclaa qiyaamaha kuwa tago ilaahay ha naga dhigo. walaalyaal, mowduucan caawa la iclaamiyey waa mowduuc muhiim ah. waa mowduuc dowladaha mashquuliyey, dhallinyarada mashquuliyey. waxaan dhihi karaa waa nooc cudur ka mid ah cudurrada mujtamacaadka ku dhaca oo muuqda ee sabab u noqdo dhib fara badan oo mujtamaca ku dhaca, bal sabab u noqdo inay dowlado ku zuulaan. mowduucan waa mushkilo caalami ah, way ka hadlaan hay-aadka caalamiga ah, ay madaxda ka hadlaan, mas-uuliyiinta ay ka hadlaan, oo dhib ku haya. dhibkaas oo xal badan aan loo haynin, bal la arkaa in uu sabab ay keento dowladda mise caalamku uu sabab keeno oo u noqoto sabab baagamoondanimadaas iyo shaqola'aantaasi. marka waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala aan ku soo koobo canaasirta aan ka hadlahayo caawa muxaadaradan, inaan ku soo koobo dhowr qodobood, leanna mowduuca waa weyn yahay. siyaabo badan baa looga hadli karaa, nidaam fara badan baa looga hadli karaa, laakiin annagu waxaan rabnaa inaan ku soo koobnaa mowduucan muxuu yahay, asbaabtiisuna maxay tahay, raadka uu ku yeelan karo mujtamaca muxuu yahay, wax daawo ama loo hayaa, islaamku daawo mu u keenay arrintaasi. annaga muslimiin haddii aan nahay walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku xiray iimaanka camal. mu'miniin haddaan nahay, ruuxa mu'minkana waxaa la dooni meel kasta uu joogo inuu camal ku jiro, camalkaa oo mid adduun anfacayo mid aakhare anfacaba, uusan noqonin ruux camal la'aan ah, ruux baagamuunda ah oon waxba haynin uusan noqonin. ilaahayna subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat, iimaankii camalku isku xiray. bal iimaanku waxa weeyaan maa waqara fi اlqalbi wasadaqahu اlcamal, huwa qowl biاllisaan واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. جوارحda wax laga qabto, camal keli oo masaajid lala galo, salaad la tukado, la soomo, waa camal wanaagsan weeyaan. acmaasha kale ee ummadda wax taraysa mise adigana ku anfacayso, camal saalixa way noqon karaan, adigaa ka dhigi karaa, niyadaadana ka dhigi karta. marka iimaanka ayuu ka mid yahay camalka oo la qabto. marka walaalayaal, maxay tahay bataaladu? asbaabteeduna muxuu yahay? aahaarta iyo raadka ay ku yeelan karto mujtamaca maxay tahay? daaweynteedu maxay noqon kartaa? culimmadu markay tacriifiyeen maadadu albataala, waxay ku tacriifiyeen altacadul iyo wanaqiid alcamaala. bataalada waxay dhaheen waa camal la'aan weeyaan, shaqo la'aan, waxqabad la'aan, iyo ruuxa inuu ka fariisto inuu adduunkiisa u sacyo wax anfaca iyo aakhiradiisa u sacyo wax anfaca ayaa la dhahaa bataala. bataaladu waxa weeyaan ruuxa inuu ka fariisto wax adduunka iyo aakhira anfaca, waana duu bitaalatin baa la dhahayaa, waa nin bitaalo mise baagamundanimo u saaxiib ah. ama xagga istilaaxu tacriifaad fara badan bay culimmada sheegeen ku saabsan bitaaladu. tacriifaadkooduna way kala duwan yihiin. tacriif baa jira oo daarij fi الاقtisaad الsiyaasi, waxay dhaheen albitaalatu bataaladu waxa weeyaan cadam اlcamal.
عمل أن لقبانين مع الرغبة فيه عمل أولئي هي أن لهينين استقوا الله ربا إن لقبته روحا مركا الدو عمل راديو وعمل دياريو هين وقبته وعمل كيوايو وحال أورنها يوا بطال روح با كمنتويا لكن أنا سيدا ما أفهم سنة سيدا ما فهم سنين وتعريف كإيقاظتي منظمة الدولية العمل الدولية والليبر أورجانيزيشن تعريف كإيقاظتي وين تعريف كوحي دهان نينكا باغموندد waxa la yiraahdaa kullu man huwa qadirun 'ala al-'amal wa raghibun fihi wa yabhathu 'anhu wa yaqbaluhu 'inda mustawa al-ajr as-sa'id walakin duna jadwa saasay ku fasireen waxay dhaheen waa ruux kasta oo awoodo inuu shaqeeyo shaqadina raba raadin haya mishaarka la qaato ee macruufka magaalada laga qaato diyaarna waa inuu qaato laakiin amalkii aan helin ruuxaasa ilaahay waxa weeyaan ninka baagamuundada oo bataalada ku rumoobaysa waa ninka taariifka waa qaasir weeyaan taariif waxa weeyaan غير jaamic taariifkaasi sida ka cad wuxuu fogeeyay ruuxan rabin inuu amal qabto ruuxa iska jiifo oo gurigiisa iska jooga aan amal rabin oo diyaar waa inuu amal qabto misna ahayo amalka ma la dhahayo ala hada taariif waa nin bataala ma lama dhahayo لأنه حاليا وانين كستو أوده إنه عمل قبته عمل كنا رادين هي الديار وإنه شقيه مشارك اللقاتنا الديار وإنه كقاته نين كاسا وهدي هو عمل إلهي نمشوا جعل قيامك واتقوا إلهي نقدقوا ولا ليال موضوعا حاول إعلامي وموضوع مهم وموضوع dawladaha mashquuliyay dhalinyarada mashquuliyay waxaan dhihi karaa waa nooc cudur ka mid ah cudurrada mujtamacaadka ku dhaca oo muuqda ee sabab u noqdo dhib fara badan oo mujtamaca ku dhaca bal sabab u noqdo inay dawladda ku zuulaan mawduucan waa mushkilo caalami ah way ka hadlaan hay'adka caalamiga ah ay madaxda ka hadlaan mas'uuliyiinta ay ka hadlaan oo dib ku haya dibkaas oo xal badan aan loo haynin bal la arkaa in uu sabab ay keento dawladda mise caalamku sabab keeno oo u noqoto sabab baagamoondanimadaas iyo shaqo la'aantaas marka waxaan rabnaa inaan insha Allah taala aan ku soo koobo canaasirta aan ka hadlayo caawa muxaadaradan inaan ku soo koobo dhowr qodobood laana mawduuca waa weyn yahay siyaabo badan baa looga hadli karaa nidaam fara badan baa looga hadli karaa laakiin anagu waxaan rabnaa inaan ku soo koobnaa mawduucan muxuu yahay asbaabtiisuna maxay tahay raadka uu ku yeelan karo mujtamaca muxuu yahay wax daawo ama loo hayaa islaamku daawo mu keenay arintaasi annaga muslimiin hadii aan nahay walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku xiray iimaanka amal mu'miniin hadaan nahay ruuxa mu'minkana waxa la doonay meel kasta uu joogo inuu amal ku jiro amalka oo mid adduun anfacaya mid aakhira anfacaba uusan noqonin ruux amal la'aan ah ruux baaga muunda ah oo waxba haynin uusan noqonin إلهنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانك عملك استحري بل إيمانك وحويان ما وقر في القلب وصدقه العمل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح جوارح ده وحلقة قبطه عمل كلي ومساجد للقله صلاة لتكده لصومه وعمل وناكسن ويان أعماشك كلا أمدا وح تريسا مثاليا كو أنفعيسو عمل صالح وينقون كران أديك كديك كران نيدا أنا كديك كرت مركا إيمانك يكمل هاي عملك أو لقبته مركا ولا ليال محيط هاي بطالة سبب تيدن محية هاي آثار تيرات كي يكون لان كرتو مجتمع محيط هاي داوين تيد محينا وكرتها علماء مركا تعريفيا مادة البطالة
waxay ku tacriifiyaan at-ta'addul iyo naqiid al-amala bataalada waxay dhaheen waa amal la'aan weeyaan shaqo la'aan wax qabad la'aan iyo ruuxa inuu ka fariisto inuu adduunkiisa u saciyo wax anfaca iyo aakhiradiisa u saciyo wax anfaca ayaa la dhahaa bataala bataaladu waxa weeyaan ruuxa inuu ka fariisto wax adduunka iyo aakhira anfaca waana duu bitaalatin baa la dhahayaa waa nin bitaala mise baagamundnimo u saaxiib ah ama xagga istilaaxu tacriifaad fara badan bay culimmada sheegeen ku saabsan bitaaladu tacriifaadkoodu way kala duwan yihiin tacriif baa jira oo daarij fi iqtisaad siyaasi ay dhaheen albitaalatu bataaladu waxa weeyaan cadamu alcamal عمل أن لقبانين مع الرغبة فيه عمل أولئيه أن لهينين استقوا الله ربا إن لقبته روحا مركا الدو عمل راديو وعمل دياريو هين وقبته وعمل كيوايو وحال أورنها يوا بطال روح باقي منتويا لكن أنا سيدا ما أفهم سنة سيدا ما فهم سنين وتعريف كإقاضتي منظمة الدولية العمل الدولية والليبر أورجانيزيشن تعريف كي قاتين وين تعريف كواحد يدهن نينكا باغموندد وحال يدها كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى ساسا كفسرين وحيدين والروح كاستو أوضو إنو شقيو شقادنا ربا رادين هيا مشارك اللقاطة معروف كمجالات اللقاطة ديارنا وينو قاطة لكن عمل كأنهلين روحها سيدهين وحوين نينك باغموندة أو بطالة كل مو بيسوى نينك تعريفك هو قاصر ويان تعريف وحويان غير جامع تعريفك سيسيدة كعد وحوفه جاي روحها ربين عمل قبطه روحها اسكتشيفه وجورجيس اسكتجوجا عن عمل ربين وأنا الديار وإنه عمل قبطه مسنعه عملك ما لدها على هذا التعريف وانين بطالة ما يلا ما لها لأنه حاليا وانين كستو أود إنه عمل قبطه عمل كن رادين هي الديار وإنه شقيه مشارك اللقاطنا الديار وإنه كوقاته نين كاسا وهدي هو عمل قريها الجوجو أو كل شقين هيو أو شقة كجرو أو شقين هي بدون أجر بدون أجر كشقين هاي لكن تعريفك مناسب كوحويا أول الربو إن الو تعريفيه البطالة عدم القيام بعمل منتج مع توافر المقدرة الذاتية عليه تاويا تعريفك البطالة عدم القيام بعمل منتج إنه الروح أوق من عمل وسنوق من عمل كاسو وحصو صار له يسوى عمل كأود له أود ذاتي أوليهي وأنين دلنيرة وشقين كرا شقدي وقبان كرا وحصوصار شقة وحصوصار لبو قبان كرا لكن مرة إنه شقدي أقومه روحها سابق منتهى تعريفك صح وكاسويان عدم القيام بعمل منتج مع توافر المقدرة الذاتية عليه إن الروح سيأود أوليها شقداس ونوحك صوصاري كرا لكن ونرهبين إنه أقومه إنكاس على لها باقموندا أرنتاسي حنكون سينا مثلا بطالده ومقدرة ذاتية على العمل روحا إنه أوضع عمل كأنه قبان كرم لكن المهير وانشقا قبان كرين مسوق قليان دادك وايلك مسوق قليان عملنا كمحرنا لأن عملك هو مجرد جهد مبذول ويان دادك دان way shaqaynayaan hatta ninka baagmoondada aanu naqaan anagu shaqaynaa jidkaas uu maraya wax buu qabanaya laakiin wuxuu qabanhayo wax muntij maaha wax dadka anfacahay maaha wax naftiisa anfacahay maaha ruux kasta amal buu ku jira hadda anaga amal baan ku jiraa Soomaa waan fadhinaa meel baan fadhinaa wax baan dhageysanayna waa amal weeyaan amal baan ku jiraa marka amalka la rabo oo bataalada lagu wado baagmoondnimada ku xiran waa amalka wax soo saar kale weeyaan waa amalka wax soo saar kale لأن دتك لو عمل فليان إلا دتك عاجز كمويان مركا عمل كان قباء روح قبنا وعمل منتجاي مركا waxa laga fahmaya haduu ruuxan amal qabanayo amalkaas uu wax soo saar lahayn ninka waa baagmoonduwa waxa ma hayo mise amal buu qabanaya uu awood u leeyahay inuu ka badan amalka ka badan uu qabto
عمل أن لمستوأهم بهايا ومقدرتي سيكوينتهاي isagana waa baagamundo weeyaan ruuxu amal buu haya amalku hayo wixii laga soo saari lahaa kama soo saarayo meesha uu iska fadhiyaa amalkaas ku magacaaban yahay reerkii iyo dadku ka dhashay ninkii amal buu hayaaba la dhahayaa mishaar buu qaadanayaa reerkii uu lacag keenaya laakiin waxa ma soo saarayo ruuxii bal dadku dad buu ka mashquuliyay meeshii kursi buu ku fadhiyaa waa mudiir jaamica mudiir madrasa meeshuu fadhiyaa wixii laga rabana ma qabanayo waa baagamundo weyn ruuxaas لأنه وحو soo saari lahaa ma soo saarahay macnaha ma aha inaad meeshan aad mishaar ku qaadanayso aad lacag ka helayso aad naftaada wax siinayso ma aha inaad wax ma soo saaraysa ma soo saarayso wax hadaadan soo saaraynin oo waxba laga faa'iideysanaynin oo meeshaasi jasadkaada bas fadhiyo reerkaaga raali ka noqdo mise aduu raali ka noqo baagmundada لأن عملكي منتجka ay wax soo saarka ma haysid ee ummadana anfacahay adina ku anfacahay bal shaqadii aad haysay ayaa dadka ka mashquulisay dad kufi u ah oo qaban laha shaqada ayaad ka mashquulisay marka badaladu waa saas weeyaan anwaac fara badan bay leedahay badaladu anwaacda ugu muhiimsan oo hadda dadka aad u dhibo waxa weeyaan albatalatu adh-dhahira badalatu adh-dhahira waxa weeyaan amal oo loo qumin ruuxa amal u qumin isagoo awoodo amalkaasi wuu awoodaa laakiin uma qumahayo gurigu iska jooga jidkaas iska marahaya meelaha fadhi ku dirku iska fadhiya wuxuu qabanhay malaha amalkiina wuu awoodaa awoodii uu leeyahay xagga jasadka xagga aqliga xagga cilmiga uu leeyahay kulli laakiin waxa ma qabanhay badaladaas hadda ugu dhib badan badalooyinka kale ugu dhib badan waxa weeyaan ummaal misadad shaqahayo aan wax soo saar lahayn mise wax soo saar way leeyihiin wax soo saarkaasi uma dhigmo xoogay bixinayaan wax soo saarkaasina uma dhigmo xoogay bixinayaan laana xoogay meesha ku khasaarinayaan wax soo saarkina waa da'iil weeyaan waxaan macna lahayn dadkan meel aan ka qabanayn naftiisana waxba u taraynin ayuu soo saaraya mise ma amal falahayanbo bidala kaamil aldaha tan horena bidala naaqisa mise ruuxa inuu mihna qabto mihnadaasi oo munaasab u ahayn tii munaasab ku ahaydna uu suuqa ka helayo oo tu kale uu ku ag wareego nooc batala ka mid weeyaan marka ikhwaani batalada anwaac fara badan bay leedahay oo xagga duwalka iyo siyaasadda dawladda u khuduucayso markii la fiiriyo macnaheeda marka batalada inta ayaan kaga baxaynaa taariifkeedii maxaa asbaab u noqon kara baagamunimadu iyo shaqo la'aantu ruuxa isagoo ilaahay awood uu siiyay subxaanahu wa ta'ala uu shaqada ka fadhiyo maxaa sabab u noqon kara dhalinyaradana waa cudur hadda haysto oo dhibkaasi la doonayo in la isugu tago dadka cuqaasha ah dadka mas'uuliyiinta ah dadka muxuu ilaahay cilmiga siiyay sidii lagu daaweyn lahaa arintaasi ariga taala in tarjumadiisa la arabixiyay sanayad marka baagamuundinimadan inay daaweynteeda la isla raadiyo hal ruuxna ma raadin karo juhud mutakaafifa juhud isku darsantay oo is xoogeysay baa daaweyn karta mujtamac kastana dhibka uu haystaa dhibkaana uu haystaa mujtamac hadda magaaladan degan asbaab maxaa u noqon kara marka baagamuundinimadaas asbaab waxa uu noqon kara kan ugu hore aljahl ruuxu jaahil ah oon cilmi lahayn oona diyaar u ahayn inuu cilmi barto waa nin dhalinyaro ah xoog ilaahay siiyay shaqeyn karo laakiin cilmi ma hayo waxna ma rabo inuu barto suuqi meesha ka jiray amalki jirina cilmigu u baahan yahay marka cilmi la'aantaasi sabab bay u noqonaysaa meeqa dhalinyaro ah magaalada suuqa taagan on amal aan u xunna min iyaga haya bal markaad aragto waad u nixi shaqadu hayo shaqo munaasab u amaaha xagga aqliga iyo xagga xoogiisaba waxa meesha dhigayna waa jahli waay waxaana nirbaagamuundanimadan waxa kamid ah ruuxa inuu ku mashquulo shaqo aan munaasab u ahayn juhdina uu ku bixiyo wax soo saarkiisana wax saas oo san ahayn waxa kamid ah badalada asbaabteeda waxa kamid ah mustawa tacliimka oo hooseeyo mustawa tacliimka kali lagama fiiriyo xagga xifdiga madaaris baan leenahay jaamacaad baan leenahay wax baan xifdinaynaa wax baan baranaynaa duruus fara badan baa la xifdiyay laakiin mustawaha cilmiga xaggii aw farsamadii
iyo wixii gacmaha laga qaban hayay ma la bartaa magaalada ma lagu bartaa meelo ma u furan yihiin uma furo marka dadkii say shaqo ku soo saaran hayaan farsamadii lama hayo nidaamkii lagu baran hay lama hayo dadkii barahayana lama hayo madaaris iyo tacliim baan haysanaa wax baan xifdinaa maskaxda noo buuxsantay laakiin maanta hadii laga baahdo wax gacmaha laga qabto wax adimaha laga qabto hadii loo baahdo wax qaban karo ma laha mustawaha xagga hadii la fiiriyo aad buu hooseeyaa waxaana lagu daaweyn karaa in la bedelo nidaamkaas tacliimka jaanibkan maadiga la hayo ee wax la baran hayo la xifdin hayo diinta iyo wixii kale jaanibka kale oo mahaariga ee farsamada laga qaban hayana muxuha jaanibkii laga baran hayana la helo tan kale waxa weeyaan waxa asbaab u ah waxa ka daahiray mujtamacaadka inay ceebayaan acmaasha qaarkeed amalkan anagu ma qaban hayo maxaad u qaban laadahay laano aniga mustawahayga ma amalkan dad gooni baa loogu talagalay qabiil gooni baa loogu talagalay inay qabtaan anaga ma qaban karo amalkii hadii la fiiriyo ummadii buu anfacaya wax soo saar buu leeyahay adigii waa ku noolaan mujtamacina way ku anfacayaan laakiin anagana laguma talagalin inaan qabanno anaga reer sayid baan nahay garaadyadii baan nahay ugaasidii baan ka dhalanay shaqada anaga ma qabanno ay magaalada dhan hadii ugaasidii garaadyadii ka dhalatay yaa qaban shaqadii dadku u baahan yihiin waa dad kale in la raadiyo marka dad kale in la doono qabto marka shaqo sabab bay u noqon inay bataalada badato garaadyadii iyo ugaasidii iyo nimanka madaxda ah dadkay dhaleen maxay qabanayaan meel ay joogayaan meel ay fadhinayaan waa baagamuunda weeyaan baagamuunda ay noqdeen marka waxa weeyaan asbaabtu waxa kamid ah inay thaqafatul aybi thaqafada la ceebeen hayo acmaasha qaarkood inuu mujtamacaasi ku dhex jiro wali khaasatan farsamada iyo waxyaalaha gacmaha laga qabto oo ummadda anfacayo bal waxa ka daran shaqadii aad nacbayd ninkii qabtay wixii uu soo saarad ka faa'iideysanaysa ma iska daysid haddaad rabin inaad qabato shaqada weelashii iyo wixii uu soo saaray gaarigii iyo wixii ruuxan uu sameynay yaad rabtaa inaad ka faa'iideysto lagu qaado adigana waad ka faanaysaa asbaabta keentay weeyaan dhalinyaro fara badanna shaqo la'aan dhigtay war maanta hadii lagu ceebayo kaba soo qaado thaqafadaas iyo amalka gacanta laga qabanayo waaba ceeb ka yahayba maanta waa lagu ceebay ilaahay agti ceeb miyuu ka yahay maya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wax ka khayr badan ruuxa ma cuno wuxuu gacantiisa ku qabtay gacantaada waxaad ku qabataa ugu khayr badan inaad cunto gacantaada dad ku shaqaysatay maanta hadii ceeb ay noqoto bari amaan bay noqon laana uu isbedelaya mujtamacan hadaan anaga bedelina ma bedel mahayo saan baa waligeed la taagnaanaya tan kale oo sabab noqon karto waxa weeyaan at-tamayuz al-jinsi wal-'irqi dadka in la kala sooco oo shaqadii soo baxdaba dad gooni ay gooni la noqdaan qabiil hebel ay gooni la noqdaan qabyaaladii meesha ay ku badan tahay shaqa soo baxday hay'adaha yimid mise shaqa timid jaamacadda shaqad ka soo baxday madaarista shaqa ka soo baxday dadkaas gooni la siiyo qabiil hebel baa iskala shaqadaas ummadii kale xageeyad sabab bay u noqonaysaa badaalada taana waxay keenaysaa cadaalad darri mushkilooyinka aan soo sheegi doonana ka dhalan doona waxa kamid ah in la cuskado asbaabtu waxa kamid ah in la cuskado aalooyinkan iyo qalabkan hadda lagu shaqeeyo teknolojiga xadiidka ah ee laga kaaftoomo dadka gacmaha waxay ku qaban hayeen dadkii way dhalanayaan waa la weynaan waa la barbaari laakiin waxa ku soo kordhaya mujtamaca mashiimo shaqeeyo mashiin dharka dhaqdo mashiin wax samayso mashiin waxa la keeni doona maqaaxiyaha ka shaqeyso cuntada kariso dadka cuntada u geys dadkii shaqaalaha intee ka shaqeynayaan dad aali baa la keeni doona oo aalo oo koronto ku shaqeeyo dadkina way dhalanayaan way badanayaan ummadina waxay keensanaysaa wax kale oo shaqeeyo marka waxa noqonaya sabab waxay u noqonaysaa baagamudanimada in la cuskado alaabtaasi iyo mashiimahaasi lagu shaqeysto waxa kale oo kamid ah dadkii iyo dhalinyaradii hadda soo baxday kulligood inay rabaan amal mutamayiz ah amal soocan inuu xafiis fariisto xafiis qabow oo dabeesha ka babanayso oo mishaar fudud oo fiican uu ku qaato nin kasta meeshaas ku firaa inuu madaxweyne noqdo inuu wasiir noqdo inuu ogaas noqdo inuu shaqo weyn in lagu magacaabo ruuxi intaas uu raadinaya nin kasta shaqada ma naga wada filan tahay yaa qabanaya shaqadii ka hoose marka dad la'aan bay noqonaysaa baagamuundinimo soo baxaysa ruux kasta wuxuu raadinayaa amal mutamayiz uu raadinaya nin kasta wuxuu rabaa inuu imaam noqdo meeqa imaam ba noqon yaa ku daba tukan
روح كسر مؤذن براين نقض يا دقيسن مؤذن كي فقولوا مثل ما يقول المؤذن marka waxa weeyaan mushkiladan haysato waa mushkilo weyn weeyaan ruux kasta wuxuu raa meesha u hor inuu fariisto mana dhici karto sunnada ilaahayna ma aha waa in la ismaamulo la kala dambeeyo dadna shaqooyinka hoose ay qabtaan dadna shaqooyinka sare ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuu wareejinayaa maalin baa la arkaa inuu ku keeno nin ku soo gaarin waa la arkaa laakiin waxba ha ku fikirin shaqadaas ee ku fikirsan naftaada ku anfici lahayd mujtamacaada ku anfici lahayd aad wax soo saar u yeelan lahayd waxa kale oo sabab u noqon kara dadkii qidaaca khaaska ah ee lacagta haystay ee xirfadaha haystay aan muxuu ahaye wax wadaagsi la sameeynin ummadda iyo mujtamaca ruuxi lacag haysto ilaahay lacag siiyay mise xoolo siiyay oo wadankii ka maqan mise wuu joogaa wadankii lacagtiisii ma rabo inuu ku shaqeeyo inuu ugu aasaaso dadka shaqo ma rabo lacagtii bangiyada la dhigtay waa la iska cunaya ruuxii isagana shaqo gooni buu iska haystaa ummadii kale ma rabo inuu wax u sameeyo shaqana u soo kordhiyo si dhalinyarada ay shaqo uga helaan waxyaalaha uu soo kordhiyay wax tacaawuna sababta kale waxay noqon kartaa tacaawun ka dhaxeeya gobolada malaha ay arinta ku daaweynayaan gobol kasta gooni ayay mushkiladaasi u haysataa wax tacaawun ka dhaxeeyo malaha gobolkan iyo gobolkaas tacaawun la'aantaasi ayaa keentay inay badato baagamudanimada dhalinyaradii waxa kale sabab noqon kara dhalinyaradii qudro uma laha mise awood uma laha inuu sameeyo fursad wax uu shaqo ku helo fursadii ma rabo inuu sameeyo bal awoodna uma laha fikirkeedina ma hayo shaqadii xaggeedana uma socdo fursooyinkaasi inuu helo uu shaqo abuurto shaqooyin fara badan hadda dhinacyada fiiriso shaqooyin badan baad abuuran kartaa dhulkan ilaahay waasica ka dhigay oo biyihiisa dhaweeyay beeraad ka abuuri kartaa beerahaad ka abuurtay wixii wax soo saarkii dadkii baad anfacday adiga naftaada waad anfacday dhulkan waasica ilaahay intaas oo geedo ku beeray geedahaas aad aadi kartaa dhuxul baad ka sameyn kartaa muxuu waxaad ka sameyn kartaa qoriyaad ka sameyn kartaa xaabaad ka soo guran kartaa wax badan baad sameyn kartaa adigoona muxuu ahaa bi'ada dibna u keenaynin fiirin hayo miisaanna saarahayo muxuu dhibka ku imaan hayo bi'ada iyo adiga nafciga ku soo gaaray marka diyaar uma aha dhalinyaradii inay abuurtaan shaqa iyaga ay u kala yihiin mise iyaga wax soo saar ay ka helayaan ummadina ay ku anfacayaan diyaar uma aha الأزمات الاقتصادية أزمات اقتصادية هي دبكا حق ganacsiga ku dhacayo iyo xagga dhaqaalaha ku dhacayo ayaa la arkaa inuu sabab u noqdo oo xoog badan sababtaasi u noqdo baagamudanimada lacagtii hoos u dhacda sharikaadkii oo khasaaro bunuugtii oo fadlisa iyo ganacsiga oo hoos u dhaca ayaa la arkaa inuu dib badan u keeno waad garanaysaan waxa ku dhacay duwal gharbiya markii bunuugtooda ay hoobteen shaqo la'aan fara badan baa dhacday bal muxuu ahaayay madaxda qaar waxay ololaha ku galaan baagamudannimadan ka takhalusayna mana ka takhalusi karaan xaqiiqatan mana ka takhalusi karaan dhibka waa dhib haysta weeyaan xagga iqtisaadka ma fiiriyo kadalika amniga hadduu hoos u dhaca oo meesha dagaal ka dhaco oo dhib dhaca sabab bay u noqonaysaa inay baagamudanimada badato waxaa kale oo sabab u noqon karaa dadka shaqaalaysiiyo muassasaadka iyo sharikaadka ayaa dhib weyn ka iman kara dhibka weyn oo ka iman kara waxa weeyaan sharikadan waxa uu shaqeeyaa 100 ruux waxa asaas ahaan hadii la dhahaa shaqaale ahaanna waxay u baahan tahay 200 ruux asaas ahaan waxay shaqaalaysiin kartaa 200 ruux laakiin 100 ruux ay qaadanaysaa 100ka ruux ee u shaqeynhayo saacadihii dadkii kale 100 kale ay shaqeyn lahaayeen kuwan ay ugu darayaan meesha la rabay muadalka qiyaasiga caalamiga ah ruuxa 7 saac 8 saac inuu shaqeeyo waxay dhahaan 16 saac inaa shaqeyso shaqada saama ku rabta miskuma rabtid waan ku rabaa ruuxa shaqo u baahan yahay 16 saac uu shaqeynaya shaqadu ruux kale shaqeynayna uu qabanaya shaqadiisa asaaskan uu qabanaya marka 200 ruux ee magaalada shaqo ka helayd company-gan 200 ruux bas ka shaqeynaysa asbaabtaas ka mid noqon kara lianna ninkan wuxuu hayaa shaqo 2 ruux ay qaban lahayd lacag yar bay u kordhinayaan mise mishaarka inta un bay dhooran hayaan marka dhibkan uu jira asbaabteena ka mid noqon karta istiqlaalu ashaab al-amal mise sharikaadka umaasha inay ka faa'iideystaan ay waqtigii caadiga ay shaqeyn jireen oo muadalka qiyaasiga loogu talagalay bini aadamka inuu shaqeeyo ay uga badiyaan waqtigii marka waxa ku soo dhacaya banaanka dad kale oo shaqada qaban lahaa baagamudanimo meesha ka dhalanaysa
waxa kale oo asbaabta baagamuundnimo keeni karto ilmaha in lagu shaqeysto ciyaalka yar shirkad gooni baa waxyaalaha ka faa'iideysta ilmaha lagu shaqeysto la dagaal geliyo la shaqooyin qabta la dhaho dadkii waaweynaa oo kafaa'ada lahaa ee qudrada lahaana shaqadii la siinin marka asbaabtaas ayaa ka mid ah waxyaalaha keeni kara baagamuundnimada walaalayaal marka waad dareemaysaan dhibkaana haysto iyo xooggiisa iyo intuu la egyahay iyo baaxadu la egyahay waad dareemaysaan marka waxaan kale uga gudbaynaa raadka ay ku yeelan karto bataalada bulshadu waa maxay raadka ay ku yeelan karto waxaa laga fiirinayaa xagga shakhsi ahaan ruuxa fardiga maxay u keeni kartaa mujtamacana maxay u keeni kartaa ama xagga fardiga ninkan dhalinyarada ah dhibkay u keeni karto waxaa ka mid ah ruuxan wuxuu ku noolaanayaa faraaq bini aadamkan hadduu faraaq uu ku noolaado camal adduunya camal aakhira uusan ku jirin waxa weeyaan waxyaalo badan baa ka faa'iidaysanaya faraaqa waa dhib weeyaan waa nicmo ilaahay uu na siiyey haddaan ka faa'iidaysan weynana waxa weeyaan meel xun bay ku dhacaysa nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas dad badan ay ku dagan yihiin alsixatu walfaraaq caafimaad buu ilaahay ku siiyey faraaq buu ku siiyey camal ma haysid faraaqi marka waa inuu meel ku baxa meeshuu ku bixi lahaa waa meel fasaad buu ku bixi lianna camalkii maslaxada kugu jira haddaad qaban weyso fasaad baad ku mashquulaysaa shaydaan baa kaa faa'iidaysanaya ninka caadilka ah baagamuundaha ah dadka shaqada haysto ayuu cadow u noqonayaa lianna wuxuu odhanayaa ninka shaqu haysta anigana shaqo ma hayay muxuu ku helay shaqa waxaa la arkaa marka inuu dhib gaarsiiyo dadkii shaqada hayay uu dhib gaarsiiyo oo shaqada qaban hayay sababta isaga naftiisa u noqonayso ma fiirinhayo wuxuu fiirinhayaa cadaaladii kale ilaahay uu sameeyey subxaana wa tacaala adigu shaqo maadan raadsanin ruuxan shaqada raadsaday maxaad u xasidi oo shaqada helay shaqaynhaya ummadda anfacaya naftiisana anfacaya waxaa kaloo ka dhalanhaya walaalayaal oo ruuxa shakhsiga u noqonaysa inay caafimaadkiisa uu hoos u dhacaa hadduu shaqo waayo ruuxii wuu fikirayaa cudur nafsi baa ku dhacaya psychologically wuu ruuxii cudura ku dhacaya cudurkaasi wuxuu keenayaa inuu caafimaadkiisa uu hoos u dhaca waana dhib ku dhacayo naftiisa ku dhacayo faqri iyo xaaja ayuu ruuxii ku dhacaysaa iyo baahi oo ku khasabto inuu dadka kale gacmaha u horsado taana waa dhib fardiga ku dhacaysa wuxuu dareemayaa ruuxii fashal inuu ruux faashil yahay oo xayaatada ka dhacsan oon dadka la socon karin taasoo ku keenayso dhib badan ruuxu wuxuu ku dhacayaa inuu mukhadaraadka u galo lianna faraaqi markuu helo faraaqa haddii aan wanaag lagu bixinin xumaan buu ku baxayaa mukhadaraadkuu ku dhacayaa qaad buu cunayaa sigaar buu cabbayaa bal muxuu ahaa dadka majaalka ku jiro ee waxyaalahaasi qaaduraadkaasi xun ku jiro waxay isku dayayaan dad badan inay kasbadaan waxyaalahay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan dadka baagamuundada maalmaha hore bilaha hore qaadka waa lagu gadayaa sigaarka waa lagu gadayaa mukhadaraadka waa lagu siinayaa bilaash lagu siinayaa waa lagu barayaa naftaada markay la qabsato yaa lagu sii daynaya waa laga codsanaya marka inaad adig keento xoolo ma haysid shaqana ma haysid waxaa kugu khasbi marka inuu ruuxi jaraa'im uu ku dhaco inuu wax hado inuu wax dhaco inuu naf dilo dhibkaasoo dhan buu keenayaa ruuxii mujtamaci buu dhibayaa mujtamaci ayuu dhibayaa marka ruuxii wuxuu dareemayaa inuu mustaqil ahayn oo ruuxiisa ruux xor uusan ahayn oo meel kale laga haysto lianna maskaxdii baa laga qabsanayaa qurunkan baa la barayaa qurunkan hadduu barto uu mudmin noqdo uu xaalatu addiction wax la yidhaha uu gaaro waxa weeyaan kama maarmahayo naftiisa ka mid noqonaysa markaa mukhadaraadka waana laga hadli doonaa mawduucaas ilahay idinkii fi hadi muxaadaraadkan socdaa marka ruuxii ee baagamuundaha kifaaye ma helayo noloshiisa ku filan dhibkaasna way ku dhacayaan caafimaadkiisa dhib gaarhaya dhibkaasoo dhan baa kaga imaanaya xagga baagamuundanimada waxa ruuxanna waa ruux ilaahay awood siiyey caqli siiyey xoogna siiyey camal wax soo saarna qaban kara xagga mujtamaca iyo bulshada dhibka gaarhayo waxa weeyaan waxaa ku fidahaya jariimada ku fidaysaa haddii ay badato baagamuundanimada iyo dhallinyarada shaqala'aanta hadduu mujtamaca iyo bulshada ay ku bataan waxaa badanaya inxiraafka badanaya jidka ilaahay oo laga leexdo dhib fara badan baa dhacaya jaraa'imta sariqada iyo nahbiga boobka iyo billiqada badanaysa iyo ruuxii aan amni ku noolayn
oo gurigiisa u cabsanahay in loogu soo dhacaa lianna ruuxa mar hadduu shaqo haysanin una naftiisa ku mashquulinaynin dad kale ku mashquulaya dad kalena wuxuu ugu mashquulaya dariiq uusan ilaahay raalli ka ahayn subxaanahu wa tacaala oo xoolahoodu ku xadgudbaya naftoodu ku xadgudbaya waqtigoodu ku xadgudbaya waxa weeyaan amnigoodu ku xadgudbaya intishaar waxaa fidahaya jaraa'imtaas iyo cunfigaas iyo tadarrufkaas waxaa ku badanaya xagtirnimada iyo muxuu ahaye afkaarta aan ilaahay oo raalli ka ahayn diintiisa aan raalli ka ahayn oo dadkaasi ay ka faa'iideystaan inay waxyaalahaasi galaan mukhadaraadka iyo muskiraadka way ku badanaysaa waxaa kaloo mujtamacaasi hadda dhibka u weyn ay haysto mujtamacaadka baagamuundimada ku badan walaal waa tahriibka waay ummadii baa tahriibaysa dhalinyaradii kulli haddaad suuqa marto hebel baa tahriibay yurub buu tegey meel qurux badan oo been ah ayuu isku soo sawirayaa meeshaan joogaa oo qiimaha badan oo fiican shaqadaasaan helaa waxba kama jiro dhalinyarado dhan buu rabaa inuu ururiyo dhibkaasay rabaa inay maraan dhibkaana ma daraasaynin waxa ku dhacayo sii socodka iyo dhibkuu marahayo iyo kharashka ku baxayo bal muxuu ahaye haddii aad u fiirsato xaqiiqatan ehelka ruuxan uu ka dhashay kharashka ku baxayo markaad fiiriso kharashkaasi hadduu magaaladiis kaga faa'iideysan lahaa shaqo weyn buu ku abuuran lahaa 20,000 30,000 dollar baa ruuxa inay ku baxdo la arkaa 30,000 dollar muxuu kaga qabsan karaa hataa 10,000 haddii ku baxdo wax weyn buu meesha kaga samaysan karaa marka waxa lama fiirinhayo waxa la fiirinhayaa shay mustaqbal ah in la gaari doono ilaahay og yahay ilaahay og iyo inaan la gaari doono bilaahi baa og subxaanahu wa tacaala ee dhaxdana ay ku jirto iyo wasaa'isha loo marayo makhaadir fara badan وخاصة markay noqdaan dhalinyarada dumarka markay noqdaan dadka tahriibay waxa weeyaan dhib badan baa laga sheegaya walaalayaal arrintaas waxa keenana waa baagamuundinimadaas weeyaan iyo faraaqa weeyaan tahriibkana waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed maanta cudur ugu weyn malaha cudurrada haysta dhalinyarada ku dhamaanaysa saxraaga iyo gabdhaha meelaha lagu bahdilahayo iyo meelaha muxuu ahaay ku rafaadsan waxa weeyaan wax laga sheekeen kara ma xaqiiqatan lagama sheekeen karo bal waxaad loo samaystay cisaabooyin ee saxaraha dhex joogo ee ummadan urursado iska socoto meel ay u socotaan aan garanaynin intay urursadaan kow inay dadkooda la soo hadlaan ay dhahan dadkiini baan haynaa lacagta hadda soo diraysa waan dilaynaa labo in looga faa'iideysto tijaaro kale oo xibnahooda muhiimka la gato dadka la qalo wayna dhacday arrintaasi dhalinyaro fara badan ayaa ku dhacday muxuu ahaa dabinkaasi ee muxuu ahaa kiliyihi lagala baxay beerkii lagala baxay wadnihii lagala baxay indhihii lagala baxay liajli inta kaliya loo dilaya oo la gadanaya waxaas oo dhan ma dareensano dhalinyarada markii arrinta laga hadlayana waxay dhahayaan ninkan hadlayo noloshiisa uu haystaa annagu rabaa inuu meesha nagu hayo war inta kugu bixi iyo qiimaha kugu bixi fiiri lacagtaasi kugu baxayso ku adooda ee ku curi shaqo meeshan magaalada joogto nolol fiicanna waad ku heli nasasho fiicanna waad ku helaysaa maxaa isu marinaysaa mafaawiistaas iyo saxarahaas iyo dhibkaasi iyo dad aadan garanayn maxaad u dhaxgeli waxa ka dambeeyna ilaahay baa og markaad Yurub tagtana mise meelaha aad u ordi aad tagto ilaahay ku geeyaba shaqada inaad heli doonto ilaahay baa og bal waxa la arkaa dadka qaar kood intii sijin la geliyay oo xabsi la geliyay hadda xabsi ku jiro aan la ogeyn meesha jiraan dadka qaar kood meesha tageen inxiraaf ku dhacay inxiraafkaasi dadkooda hilmaansiiyay hooyadii aabihii meesha fadhiya ku farxay inuu ilmihiisa tagay Yurub lacag buu soo diri doonaa warkiisa waa la waay xagee buu aaday lama yaqaan marka ikhwaani dhibkaas ku dhacay mujtamaci inay arda dhalinyaradii ay tahriibaan ay mushkilaadkaasi ay la kulmaan usrooyinkii oo kala jajabay ayaa ka dhici karta liana dadka de shaqo la'aan noqdaan usradii isma haysanayso ay dadka qaarkeena shaqeeyna iskaalmaynin ilaahina subhanahu wa ta'ala uu nagu booriyay dadka qaraabada iskaalmayaan hadii shaqo la'aan ay dhacdo qaraabadu way kala tagaysaa dadku way kala tagayaan tacliintii buu ruuxa ka go'aya ruuxan tahriibku ku fikirayo tacliin iyo wanaag iyo wax inuu bartamiyo ku fikiraya ma kuma fikirayo tacliintii buu ka go'aya walaaladii iyo dadkii saaxiibadii oo shaqeynhayo arkaya dadkii Yurub aado lacag soo diro arkaya tacliintu baran hayay ma fiirin hayo xikmadii laga lahaa iyo hadafkii laga lahaa iyo waxa u dambeyn doona ma fiirin hayay waxa hayaan buu fiirinayo u dhaqaaqaya tacliintu buu ka go'aya tacliintii ayuu ka go'aya waxa kale oo dhacaya waxyaalaha ugu iimaanaya waxa weeyaan shacabka oo laga xirmaaniyo waxyaalaha imkaanaadka uu haysto hadii dhalinyaradii dhan ay ka yaacaan mise bataala ay dhacdo yaa ka shaqaysanaya dhulkan yaa ka shaqaynaya
oo wax ka soo saaraya oo nafciga ku jiro ka soo saaraya dhalinyaradii haddii ay shaqadii gabeen ayna shaqadii inay shaqeeyaan mise meel kale u yaacayaan ummad kala imaanaysa ka faa'iideysato ummad kala imaanaysa gaaladii baa u soo dabamaraysa dhulkan qiimaha badan ilaahayna siiyay Yurub iyo Mareykan waxay ku fikirayaan inay warshadahooda halkan keensadaan quranka warshadaha ka soo baxaysa annaga cudurkeeda nagu rido ay ku fikirayaan inay keenaan dhulkan qiimaha badan ilaahayna siiyay subhanahu wa ta'ala marka ikhwaani dibkaas ku dhacaya waxa imaanaya fawraad ba kacayaan dadka bataalada day ku badato mujtamacaas ay dawlad leeyihiin dawlad iyo siyaasad taagan ay leeyihiin bataaladaas iyo baagamoondonimadaas inay sabab u noqoto halka inay waxa aragteen ka dhacay caalam carabi fawraadkii rabiic ay ku magacaabeen sababta ugu horreysay waxa weeyaan bataalada cadaalad ma dhicin dawladii shaqo umayna abuurin dhalinyaradii baa badatay faraaqi ayaa shaydaan ka faa'iideystay jidkii ilaahay bay ka leexdeen dawladihii hayay marka dhalinyaradii firaaqa haysatay baa lagu diray dhalinyarada ku dhaqaaqday waa kuwii burburay dawladihii iyo masaa'ibtii ka dambeysay waad ogtihiin dadka dhageystay waxa soo dhanna waxa weeyaan waa baagamoodnimadaas ayaa keentay raadka ay ku sameyn kartaa baagamoodnimada mujtamaca iyo fardiga maxaa lagu cilaajin karaa walaalayaal annaga haddaan muslimiin nahay cilaajku waxaynu ka fiirinaynaa xagga islaamka ka fiirinaynaa iyo diinta islaamka waxay ku cilaajisay islaamka wuxuu ku daaweeyay bataalada inay afraada ummadda wada nool inay dad iskaashadaan ay tacaawunaan ay la tacaawunaan mas'uuliintooda ay la tacaawunaan mas'uuliintana ay shaqo dadka u abuuraan ay ummaddaasi iyo dhalinyaradaasi ku hoos nool ay wax baraan ay tababaraan ay ku booriyaan amalka ayna ka reebaan tuugsiga iyo tahriibka iyo waxyaalaha dhibka u keenayo dhan ay ka qayb qaadato dawladda meesha ka jirto asaas islaam intii ku dhisto iyo qiimo islaamiye ku dhisto ay dadkeeda ka fikirto ay dadkeeda wax u samayso ay dhalinyarada tababarto ay tacliinta kor u qaado ay ku booriso dadka amalka ay amal fara badan iyo fursooyin fara badan u samayso marka islaamku wuxuu ka daaweeyay bataaladii baagamoodnimada wuxuu ku daaweeyay laba jaanib جانب وقائي جانب علاجي جانب وقائي وحويان وبريفنشن واي إني بطالة بمركه هرب الهور استاجو أين دعين هو سكبا باي روح إنه يقول كان سجاس كله أنا وبورين وكبورين هاي رسولك صلى الله عليه وسلم ضد يقول كان كشقيان يقول كذا كشقيان مال كلا إيه هنقل تاجن مال كلا إنه هنقل تاجن أنا مال كلا تهريبين يقول كذا إلهي خيرات بدن قليي يقول كان خيرات بدن إلهي قليي سبحانه وتعالى meel kastood istaagto khayraadka ka helaysa marka maxaan uga faa'iideysan laanahay waxyaalaha kamid ah lagu daaweyn karo waxa kamid ah walaalayaal baagamoodnimada in laga faa'iideysto amwaasha iska taaloon laga faa'iideysan xoolahaas laga faa'iideysto oo mashruucaad loo abuuro waxyaalo yar loo abuuro dhalinyarada ay ka shaqeeyaan in la karaameeyo amalka gacanta laga qabto iyo farsamada gacanta laga qabto harqaanta muxaa biraha la hagaajiyo makaanignimada waxyaalo badan oo gacmaha laga qabto farsamo oo ruuxa uusan ku baraarugaynin oo faa'iido badan isagana wax soo saar u yeelanahay mujtamacu ku anfacayo ayaa buuxa amalkaas in la karaameeyo dadka rabo inay amal qabtaana la kaalmeeyo oo ilaahay loogu dhawaado kaalmeentoodaas dadka xoolaha leh waxaan ku boorinayaa oo dardaarmaya dadka amaanada leh oo shaqo la'aanta ah inaad kaalmeysaan aad shaqo siisaan mise xoolahiina ilaahay idin siyaad ku kaalmeysaan shay shaqo u qabtaan ee hadhowtu u soo celiyaan lacagtaas awliyaa umur mas'uuliyad weyn baa saaran dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xukunku u dhiibay ay mas'uuliyadooda ka soo baxaan ay u diyaariyaan shaqo iyo fursad ay u abuuraan diinta dadka lagu tarbiyeeyo iyo thaqaafada saxiix dadka lagu tarbiyeeyo qiyamta iyo akhlaaqda diinta islaamka ay ugu yeerayso dhalinyarada lagu tarbiyeeyo ilmahana lagu tarbiyeeyo gurigayna ka bilaabanaysa arrintaasi taana waxa kamid ah ruuxa in lagu beero qiyamta wanaagsan ee ku boorinaysa ruuxa amalka iyo dadaalka iyo dhulkaasi ku ordo oo ka faa'iideysto khayraadkaas ilaahay siiyay yaana dhalinyarada intooda badan oo khayr ilaahay geliyo subhanahu wa ta'ala waxa la arkaa inuu shaqada u nacahayo shaqadaasi wuxuu u diidan yahay mas'uuliyadka korkiisa fuulahay مسؤولية إفوليسا مسؤولية كما سو بخي كري وان دبابيا نوع ما هو مدخل من مداخل الشيطان وشيطان كسو غلهي وكدا دعنهايو والمسؤولية ما قبن كرتيد شقدنك وما قلنتيد اسكدا اسكا فدي ما ها انه نعها شقدي
waxyaalahaasuu naftiisa ku qancinaya waxyaalahaasuu naftiisa ku qancinaya ruuxan markaa uma baahno wax badan in lagu booriyo baa la rabaa inuu camalka yahay nooc min anwaac alcibaada camalkan uu qabanhayo shaqadan uu qabanhayo naftiisa uu qabanhayo ونفتيسا وكنا فقين هيو إهلكيس وكنا فقين هيو ومديس وكنا فعيو إن لقدنا دعية ويان نوع من أنواع العبادة عبادة إلهي لو قد دوان هيو نوع كم إذا إنه يهي مركا شقدا وحدو قاتا إنه يتهي عبادة إنه يتهي هدي النية هذا كاكستو إلهي سبحانه وتعالى أجر كيدو كسينية هدي شقدا هذا أدو حفيز كادو كاللحظو شقدا هذا بيرت هذا كاللحظو ود إلهي يقول دواته سبحانه وتعالى النية هذا أي تهي إن عددك كافتونتو ehelkaagana aad ku naafaqayso ciyaalkaaga ummadaas aad anfacdo wax soo saarka ka soo saarmayo beertaasi ka soo saarmayo aad ummada ku anfacdo inta aad shaqaynayso beerta aad falayso iyo waxa ku soo go'ay aad soo rarayso ilaahay ajirkeedu ku qoriya ajir aan istaaginin baad leedahay marka waa nooc min anwaac alcibaada dhalinyaradan waa inay saa u fahmaan ayaa la rabaa inuu cibaado uu ku jiro hatta dad culuum dunyawiya aad baratay culuumta dunyawiga aad baranayso mise aad barayso dadka aad ka dhax shaqaynayso waa inaad niyadii diinta xaqeed u soo leexiso ilaahay xaqiisa aad u soo leexiso aad dadkaada ku anfacayso masaalixdaada adduunyo aakhira aad rabto inaad uga faa'iideysato wakana uu yiri mucaad radiyallahu anhu inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati hatta markaan hurdo ilaahay ajir baan kaga doonaa buu hurdada aad raaxaysanayso haddaad u hurdo inaad ilaahay ugu dhawaato oo ilaahay u xoogaysato daacada ilaahay daacada ilaahay ugu xoogaysato waxa ilaahay ajir buu ka inta tifto ilaahay ajir buu ku qoriyaa subhanahu wa ta'ala cuntada aad cunayso shaqada aad hayso aad ilaahay dabti aad u qabanayso ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku siinayaa ajir buu ku siinayaa tan kale oo lagula dagaalami karo ee baagamuundada waxa weeyaan in la dagaalamo misal la ciribtiro thaqafada dhaxdeena taalo oo la ceebeen hayo amalka qaarkiisa acmaasha qaarkood lagu ceebeen hayo war amalkan anaga nooma qalmo inaan qabanay maxaad ka doonto ilmihiiba hooyadii baa saa ku dhihi aabihii baa saa ku oranaya marka waxa weeyaan inay thaqafadaasi la ciribtiro amal kasta oo wax soo saar leh oo ilaahay uu raali ka yahay sawaan ha hoosay mise ha sareeyo ruuxa muuminka inuu qabtaal rabaa لأن نفتادي وإناد كجبت بادو ضدك جعمه هورسيجا اليد العليا خير من اليد السفلى جعنت سريسا يا كخير بدمده هوسيسو اليد العليا نواتو واحد حنيسو اليد السفلى نوامده واحد ودينيسو marka adu teerabta inaad noqoto shaqadan marka waxay ku gaarsiinaysaa inay gacantaada mid sare noqoto marka shaqadii miyaad ka faani marka arintaas in laga cibtiro mujtamacaan ku noolaa laga cibtiro ayaa lagu daaweyn karaa baagamuundnimada iyo dhibka naga haysto inay dhalinyarada la tababaro oo lagu tababaro muxuu ahaay inay gutaan acmaal kala duwan jaamacad ha dhigtaan macahad ha dhigtaan meel raba ha dhigtaan inay dhalinyaradan loo sameeyo dowraad muxtalif ah ay ku baran karaan farsamo fara badan ay ku baran karaan iyagoo dhigan hayo culumtoodii asaasiga iyagoo dhigan hayo ayaa waxyaalo jaanibi ah ee garab socdo culumtaasi la bari karaa oo ruuxa dhawta uu khiyaar u yeelan karaa hadii uu xaggan asaasiga wax ka waayo xaggan farciga u leexan karaa hadii jaamacadii arinta u qumi weyso mise macadku baranay arinta u qumi waayo xaguu ka helaya marka khiyaar kale ardaygii wixii asaasiga u bartay wuxuu noqday shay kaasid ah oon wax faa'iido lahayn mujtamaci markuu soo baxay uu soo takharuju soo dhameeyay shaqadu qaban lahaa uu ka waayay meesha marka waxa la rabaa mas'uuliyiinta tacliinta ilaahi uu saaray mas'uuliyadooda inayna ka gaabin arintaasi ay khiyaaraad fara badan ardada ay wax barayaan u sameeyaan walow hatta ha ahaato ishaara mise tilmaam ha ahaato ay khiyaaraad fara badan u sameeyaan oo ardayga uu ku barto intuu jaamacadda dhiganayo farsamooyin fara badan uu ku barto oo fudfudud si hadhowta hataa asaas ay ugu noqon karto haddii cilmigii asaasiga uu ka baxay uu shaqo ku waayo shaygii ishaare laga siiyey jaamacadda intuu dhiganayay wuu u leexan karaa wuu baran karaa oo laga rabay mujtamaca in loo qabto marka arrimahaasi waa inaan ka soo baxno ardada loo sameeyo barnaamijyadaasi loogu sameeyo meelaha muassasaadka tacliimiga ay wax ku baran hayaan aan arrintaani laga gaabinin taana wax badan bay ka qaaban kartaa daaweynta aan daaweynayno baagamuundnimada in la tashjiiciyo geesinimo la geliyo dadka xoolaha leh inay istithmaar ku sameeyaan ay wax ku beertaan wadanka ay ganacsi gashadaan in la hagaajiyo nidaamka iqtisaadka ka jiro hadii uu jiraba nidaamka tacliimta la hagaajiyo alcadaala fi tawdiif
waxaa kaloo lagu daaweyn karaa inay cadaalad loo sameeyo dadka khaasatan mas'uuliyiinta iyo dadka ilaahay gacmahooda geliya shaqada ha ahaado mas'uuliye caama mise mas'uuliye khaas ha noqoto oo shaqo ilaahay uu gacantiisa geliyey oo loo xil saaray dadka inuu shaqaaleeyo inuu cadaalad u sameeyo uuna samaynin u iilasha dadkan baa ku waafaqsan dadkan baa ehelkaaga kuwana qabiilkaaga ah aadan fiirinin inta u baahan aad fiiriso shaqadaasi oo qaban karta si cadaalad ah oo mutasaawi aad u siiso taa ayay ku barakoobaysaa shaqadaada oona amnina uu noogu dhacayaa oo faa'iido fara badanna aan ka helaynaa dadkana ay raalli ku noqonayaan haddii dhowr ruux haddii aad shaqo abuurato maalan aad ka abuurto magaaladan oo hal qoys bes aad siiso shaqadii dhib baa kugu dhacaya lianna shaqadaada dad kale oo u baahan tahay mise adig keli baa isku filan haddii aad maalan aad samaysato mashruuc tijaari ah in wax lagaa gato aad rabto dadka ka dhex muuqdana iyo dadka ay kala yihiin ka dhex shaqaynhayo waxba lagaama gadanhayo xaqiiqatan in meel kale la waayo la aado mooyaane laakiin haddii aad dadka isku dhex darto oo cadaalad aad samayso ilaahayna ugu dhawaato arrintaasi ree hebel wax ka soo qaado ree hebel inta wax ka qaad dadkan meesha lagu liidahayo mise ku yar wax ka soo qaado aad isku dhex darto ummaddii oo dhan ay ka dhex muuqato shaqadaada faa'iido may ku tahay adimise kuma aha faa'iido way ku tahay awalan waxaad rabto waad helaysaa haddaad ilaahay arrintaa ugu dhawaatana waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda ku siinaya marka cadaalad in la helo oo laga helo dadka mas'uuliyiinta mise dadka shaqada bixinayo ay u bixiyaan si mutasaawi ah ay dadkan u siiyaan si siman ay u siiyaan ayna ilaahay arrintaa ugu dhawaadaan nidaamka zakaadka in laga faa'iidaysto ayaa ka mid ah waxyaalaha baagamundanimo lagula dagaalamo haddii aan leenahay nidaam isku xiran oo zakawaadka lagu ururinhayo xoolaha lagu ururinhayo dadka ammaanada leh ee shaqada leh ee baahan oona mustaxiqiin u ah zakada waa la siinayaa si ay ugu shaqaystaan xoolahaasi zakada ayna wax uga dhaliyaan ay uga qayb qaataan mustaqbalan iyaga hataa in zakada laga qaado leanna ruux faqiir haddii xoolo la siiyo uu xoolaha ku shaqeeyo xoolihiisa ay nisaab gaaraan zakada ma laga raba mise lagama rabo waa laga rabaa zakadii marka wuxuu noqonayaa ruux ku soo darsamay dadka zakawaadka bixiyo laakiin zakadii aan haysanay iyadoo xoolo badan ay tahay aanan laga dareemaynin mujtamacay waxa weeyaan mushkilo iyadana haysato weeyaan oo la doonayo in daawadeeda la raadiyo leanna ruuxii zakada bixinayay ruuxii miskiinka ah wuxuu wasiinaya waxaan ku fillayn oo la arkaaba maanta keliba inuu ku qadayn karo mise bishan keli aan bishan ba aan ku fillayn culimmada islaamka waxay ka hadleen zakawaadka markii la bixinayo shaaficiyada hataa ay tilmaameen ruuxa in la siiyo xoolaha zakada laga siiyo ruuxa faqiirka ah in ku filan sanadka mise in ku filan noloshiisa qaalibka intuu noolaan karo ruuxa laga siiyo zakada laga siiyo taasay tilmaameen taana waxay ku tusaysaa ruuxii haddii aad siiso xoolo ku filan sanadkan waxyaalo badan buu ka abuuranaya haddiiba la siiya kaba sii fiicanba noloshiisa intuu noolanhayo wax ku filan 70 sano 60 sano wax ku filan karo waxaas la siin hayana waxa weeyaan wax soo saar la weeyaan marka nidaamka zakawaadka ah inaan isku dayno culimada ay sameeyaan juhuud isku xiran iyo dadaal isku xiran haddii arrintaasi laga faa'iideysan karo laga faa'iideysto oo la diyaariyo arrintaasi si ay uga faa'iideystaan dadka baagamundanimada ay dhibtay ay uga baxaan baahidaas ay uga baxaan ayna sabab u noqdaan iyaga inay zakada bixiyaan marka walaalayaal arrintan waa mushkilo caalami ah ee annaga iyo dad kaleba na haysato laakiin nin kasta mushkiladiisa unbaa ku filan sidaan ku daaweyn lahayn walaalayaal falkeeda waa inaan gallo ilaahayna ugu dhowaano subxaana wa tacaala nidaamka islaamka uu marayna aan fiirinno uu ku daaweeyey daahiradan jirta ee baagamundanimada ah islaamkana uu ku booriyey dadka inay camal qabtaan aan fiirinno dhibka ka dhalanhayo dhibkaasi oo afraadda ku soo noqonayso mise bulshada ku soo noqonayso iyo sidaan u daaweyn lahayn falkeeda aan gallo dhallinyaradana ayna ku fikirin inay mujtamacooda ay ka cararaan bal ay ku fikiraan say mujtamacooda dhexdiisa shaqo uga abuuri lahayeen ay u noqon lahayeen qudwo iyo ku dayasho dadka ka dambeeya iyaga bal waalidiinta waxaa la rabaa inay qudwo noqdaan oo waalidkii uu noqonin ruux baagamundo ah hadduu waalidkii shaqo sameeyo uu shaqo abuuro ilmihiisana way ku dayanayaan laakiin hadduu waalidkii nin guri iska jiifo uu noqdo oon waxaan macno lahayn oo garaab ah oo meelaas ka fadhiyo uu noqdo ilmihina say ku dayanayaan lianna isaga